waxaana wanaagsan gebi ahaantiin daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda oo idinkaga imaanaya channelka Gobson TV. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka qayb noqonaya ciidamada xoogga dalka oo la wareegay deegaano ku yaala Shabeellada Dhexe, beesha Mursade oo hubkii iyo ciidankii ugu badnaa soo bandhigtay, dadka ay waxyeelaysay abaarta ka jirta Soomaaliya oo ka badan tii ku dhufatay sanadii 2011, beesha caalamka oo dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud si aad ugu dhaleeceysay xariga Cabdalla Muumin. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan barnaamij wareedkeena, balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan inagoo ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa. waa maalinimo Sabtida, taariikhduna ay tilmaamayso 15 bisha 10aad ee Oktoobar sanada 2022. waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la wareegay deegaano ay ku yaala gobolka Shabeellada Dhexe, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa xalay Al-Shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan Shabeellada Dhexe. deegaanada ay ciidamadu la wareegeen waxaa ka mid ah deegaanka istiraatiijiga ah ee Xawaadley oo hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Xawaadley oo ku taala bartamaha Jowhar iyo Balcad ayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa ku sugnaa kooxda Al-Shabaab, taasi oo sababtay in uu istaago isu socodka Jowhar iyo sidoo kale Balcad. sidoo kale Xawaadley waxaa ku taala buundo isku xirta labada shabeelle, waxaana Al-Shabaab u isticmaali jireen marin ay isaga gudbaan ilaa iyo meelo ka mid ah gobolada dhexe. ciidanka qabsaday Xawaadley waxaa hogaaminaya korneyl lagu magacaabo Abuukar Bonow oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. dhanka kale tana waxaa sii kordhaya abaaraha ee ku dhufanaya geyiga Soomaaliyeed, iyada oo digniinihii ugu xooganaa xilligan looga soo saarayo. hay-adaha kala duwan ayaana sheegaya in abaarta xilligan ka jirta dalka ay ka badan tahay dhibaatadeeda tii dhacday sanadii 2011 oo in ka badan 250,000 oo qof ay xilligaasi ku geeriyootay. hay-adda gargaarka ee Oxfam ayaa sheegtay in 36 ilbiriqsiba hal qof ka badan ay u geeriyooto gaajo iyo sidoo kaleeto abaaraha ee ka jira geeska Afrika. ilaa ay dhamaadka sanadkan haddii aan la helin taageero xoog lana ay xaaladdu intaasi ka sii dari karto. qaybo badan oo ka mid ah dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa isku diyaarinaya xilli roobaadkii shanaad, iyadoo malaayiin qof ay isaga tageen miyiga ayna ku nool yihiin xeryo ku meel gaar ah oo magaalooyinka u dhow. hay-adda Oxfam ayaa sheegtay in tirada dadka ay la soo diristay gaajada daran ee Soomaaliya ay kor u dhaaftay tiradii ay saameysay macluushii 2011 oo ay ku dhinteen in ka badan 250,000 oo qof. dagaalka ka socda Ukraine ayaa saameyn xoogan ku yeeshay qiimaha la kala siisto cuntooyinka aasaasiga ah oo meelaha qaar sii 3 jibaarmay. dhanka kale tana beesha caalamka ayaa digniino xoogan waxay u jeedinaysaa dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud, iyagoo ku dhaleeceynaya xarigii uu kula kacay xogayihii ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Muumin. waxaa isi soo taraya dhaleeceynta dawladaha adduunka ay u soo jeedinayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dawladdiisa,
taasi oo ku aadan xiritaankii lagula kacay xogahayihii ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Cabdalla Muumin. haddaba dhaleecayntan ayaa uga imaanaysa dowladaha caalamka iyo sidoo kale hay'adaha Soomaaliya taageera, taasi oo la xiriirta xariggii sharci darrada ahaa ay dowladdu u geysatay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS Cabdalla Axmed Muumin. dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa cambaariyay xariggii sharci darrada ahaa ee loo geystay xogayaha guud ee Somali Journalist Syndicate SJS Cabdalla Axmed Muumin. qoraal ka soo baxay safaaradda dowladda Mareykanka ku leedahay Muqdisho ayaa waxaa lagu yiri Mareykanka ayaa si dhow ula socda xarigga joogtada ah ee dowladda Soomaaliya ay ku hayso Cabdalla Axmed Muumin oo u ololeeya xorriyadda saxaafadda madaxa bannaan, taageerana horumarinta warbaahinada madaxa bannaan ee Soomaaliya ka jira. dhinaca kale, safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xarigga xogayaha SJS Cabdalla Axmed Muumin, laguna cambaareeyay in boqortooyada Ingiriiska ay aad uga walaacsan tahay xarigga Cabdalla Axmed Muumin, xogayaha guud ee SJS. xorriyatul qowlka saldhig waxa uu yahay dhammaan xuquuqda insaanka, waxaana ku boorinaynaa Soomaaliya in ay raacdo nidaamka sharciga ah iyo in dacwada si cadaalad loo dhageysto. sidoo kale, guddiga difaaca saxafiyiinta Afrika ee loo soo gaabiyo CPJ ayaa dhankooda si kulul uga hadlay, iyaga oo ka jawaabay u doodaha xorriyadda saxaafadda ahna wariye madax bannaan Cabdalla Axmed Muumin, iyagoo soo saaray bayaan ay ku baaqayaan in si degdeg loo sii daayo Cabdalla Axmed Muumin. waa nin aan cabsi lahayn oo aan ka daalin u doodidda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed in ay si xor ah oo madax bannaan u tabiyaan wararka. xariggiisu waa gardarro aan la aqbali karin, waxaana shaki la'aan ah inuu cabsi badan u dirayo bahda saxaafadda Soomaaliyeed, ayuu yiri wakiilka CPJ ee Afrikada Saxaraha ka hooseeya Mukoti Momo. mas-uuliyiinta dowladda waa inay si degdeg ah oo shuruud la'aan ku sii daayaan Cabdalla Axmed Muumin, taa beddelkeedana ay ka shaqeeyaan sidii loo abuuri lahaa jawi ay saxafiyiinta Soomaaliyeed ku shaqeeyaan cabsi la'aan. ugu dambeyn, hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda oo ay ka mid tahay hay-adda Amnesty ee qaybteeda Afrika ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xarigga aan sharciga ahayn ee xogayaha guud ee SJS Cabdalla Axmed Muumin. mas-uuliyiinta Soomaaliyeed waa inay si degdeg oo shuruud la'aan ku sii daayaan, sidoo kalena waa in ay ixtiraamaan, ilaaliyaan oo ay horumariyaan xorriyadda hadalka, ayaa lagu yiri warka Amnesty. dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyey madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud ayaa culayskii ugu xooganaa kala kulmaysa beesha caalamka, taasi oo la xiriirta xarigga Cabdalla Muumin, iyadoo la ogyahay in dowladdu ay ku tiirsan tahay dhaqaalaha iyo taageerada beesha caalamka, lagana yaabo in ay dib u eegis ku samayso. daawadayaal, qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena. haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade, waxaa kaa codsanayaa in aad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo, aad u sii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. mar waliba waxaan u taaganahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan, inagoo ku baahina halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa.